xalfad ballaanay ku qalan jibinay ardada dhameysatay labada maxad Daarulbir iyo Fatxur Raxmaan fadan ballaanay ku qalan jibinay ardada ayaa waxa ka soo qayb dhamaan bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeeyeen macallimiin waalidiin iyo marti sharaf aad u badan lagu soo casuumay ugu horeen waxa halka ka hadlay labada maamulo Sheekh Umar Cabdi Ibrahim iyo Sheekh Shaafici labada maamulo oo ka kala socday labada maxad iyo halka waxay hambalyo iyo dardaar u jeediyay ardada ka qalan jibisay maanta iyagoo u sheegay inay waxbarashadooda sii wato waxaan ku warbixinayaa macadkan iyo sida uu ku soo socday iyo sida insha Allah taala aan rajaynayno insha Allah taala hadda inaan ku sii wadno marka labaad saddexda oo ka kooban haddaan ka kooban ku horeeyo marka koowaad ardaydan hadda baxaysa ardayda macadka Daarulbir iyo Fatxur Raxmaan labadooda hambalyoyin ayaan hambalyeynaya hambalyeynaya kadib waxaan leeyahay insha Allah taala wadaad bedelateen marxalad hoose dhexe ayaad ka qalin bedelateen dugsi sare ayaad u socotaa waxbarashadii kooba joogto bilowgaa joogtaane hamboodina maamuuska ninkaan laynagu sharfayaaye inay tahay yoolkii iyo hadafkii iyo meeshii la socday ardada intaasaan leeyahay talabaad waalidiinta halka ardayda idinkaa soo gaarsiiyey sharaf baad mudan tihiin boqolkiiba boqol waa idin hambalyeynaya idinkaa hambalyo mudan waxaa la yidhi maxadka Fatxur Raxmaan waxaa la aasaasay 2017 isla markaana maxadka waxaa ka baxay dufcadda maanta aan u fadhino xafladeedii laba dufcadood oo ka horreeyey sidoo kale maxadku waxaan leeyahay wuxuu ka mid yahay macaahidda adaadiga ee hoos yimaada maxadka sare ee Imaam Nawawi lilculuum alsharciyya walcarabiya walmaadiya maxadku waa maxad maxaa leeyahay hoose dhexe xagga maxaa leeyahay marxalada xagga maadiga xagga diiniga mustawiisu waa mustawa sharaxo oo waxaa lagu xafisiyaa ardayda kitaabta mutuunta sida fiqiga سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق السلطان النبي عليه الصلاة والسلام والماء الله حفلة داعية تدريب قدرة جميلية رقصي عليها أنت فدني أهلا وقيراني مكان كي أرضي داعي أروح وصيصو حدنا هيك وحباش المشي كتابي هنا عكي يقول لك أنا وكان المكان أسبوع به واحد أكي ربح بنات يسوي شيء قولك كل شيء أنا مسيب لتهي منك وحباشرة أما منك الدين عندنا هذا بالله هاي وعليه ترتبت بقى ساعتين تيكوه تي لوان لويدي أحسن تاي تي سدحالي تي أفران ويتك الجوزة ما أنت حفلة داس يا ماموس كاس واحد يكون سبيعي وادرتين يعلم لها برتين يقول حفظ يوسف يوحكي يجوب لي أبو بحي سيدا درتين إن شاء الله تعالى وحلال يا همبليو حفظك الجدرات هكذا سيوا وحباشا سيوا ذاك الدارنا إن شاء الله تعالى وحابقنا إنسان وقاميات شيء بريت إن شاء الله وحابقنا إنسان هو ذاك الدين القاسية الله يلما خسارين الوالدين تني يا معلمين تنقصوا تعبتين ركابك وضعك ساعتين هريق القدبة والدين تنهرب الله يهيو تعبك هكذا كجت شفتين ويرها قبلهم رجي وهاي عشرة بوسكي وكم غيره كلية الدنيا من وحاول أعطوها عن تنسل معك وصبح كبرتين ونوع عبرياننا ووضع سكان كانت هكذا وحاول بيانان المغرب كون منوع والبوطاء والدندرين مركا إلهنا ويديننا مركا وضع waxaan ku baraarujin lahaa dhalinyarada aqaan jabisay inay waalidkood xaqooda ma guri karaan ay ka farxiyaan ومرسل منه سحابي صغر وبالوالي ما روى الثغر وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال والمعضل ساقط من اثنان وما اتى مدلسا نوعان الاول الاسقاط شيخ وان يقول ممن فوقه انا يوم لا تنقل الله صارت يوم الكبنات مرت على إن صلاة الله أصدار وكلية لداي مرت على إن دنيردين غيب ضرب غارقاتين كارهاتك يتماع مرت على تتكوى عن وعلي إن أعطيك قبيالك ugu dambeyntii ayaa halka waxa lagu guddoonsiiyay macallimiintii shahaado sharaf ay guddoonsiiyay ardayda ka qalan jabisay labada maxad xalfadan ayaa waxay ku saabsantay jawi aad u qurux badan Najmi Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga Royal TV magaalada Buuhood